marwada koowaad ee musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Marwo Firdawso Maxamed Rooble ayaa xariga ka jirtay xafiis uu xisbiga wadani ku yeelan doono xaafadda Oktoobar ee degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa waxaana wareyntii halka hadallo soo dhaweeyna ka yiri dadweynaha degmada Axmed Dhagax waxayna yiraahdeen soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idin salaamayaa annagu xoog iyo garab iyo gaashaanba intaba waan u huraynaa wadani baa wadanahay xaafadda Oktoobar ayaanu nahay oo ligidi intaanu ka tira leegna xoogayga iyo intii aanu awoodi karnayba wadani baanu nahay wadani marka labaad waxa mahadle xusbigan aynu maanta ka tirsanahay sidaynu ugu heelanayna mahad bay inoogu sugan tahay waxa weeyaan waxaan garanayaa bari aanu xusbiya ahayn oo markaanu dariiqa marno calanka iyaga nasiiya loolan jiray anuu horta ka un baaban ka faaliyaayo imika halka hadaanu marno calanka wadani waa la isku laayaa calanka la isku laaynaayana waxbaan uga soo joognayo insha Allah bidmillaahi kariim guusha waynu helaynaa taasi waa ilaahay baynu ka baryaynaa in ilaahay guusheena siiyo ta kale waxa weeye xaafadan Axmed Dhagax ee ay marwada mustaqbalku maanta u furtay xafiiskan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hadaanu nahay xaafada reer Axmed Dhagax waxaanu aad iyo aad ugu calool wanaagsanay uguna caloolsanahay inaanu maanta shanta xaafadood ee Hargeysa maanta 8 baabay noqotay inaanu lambar 1 ka qaadno hadaanu nahay doorashada xaafada reer Axmed Dhagax dhinaca kale iyana waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka garabka heer qaran Safiya iyo la taliyaha arrimaha dibadda ee musharaxa madaxweyne xisbigaasi wadani Marwo Faadumo Saciid iyo xildhibaan Baar Saciid oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbigaasi wadani waxayna yiraahdeen Cabdiraxmaan waxa leeyahay dooni maayo madaxtinimo iyo kursi uu ku fadhiyaa kursigii baan leeyahay ma doonayo qasrina uu ku fadhiyaa wuxuu doonayaa dalkan iyo dadkan inuu badbaadiyo dhibaatooyinka tirada badan ay hareeyeen waxa leeyahay tareenkii wadani uu dhaqaaqay ninkii uu ka tagow waa nasiibka maanta kolle annagu waanu nimi kulmiyana wuu idin iman doonaa waxa laga yaabaa inuu dhalinyarada inamada yiraaho annaguna lacag baan idin siinaynaa idinka waxa laga yaabaa in la idinku yiraaha lacag baan idin siinaynaa laakiin waxa 7 sanadood la idin siin waayay maanta ma qaadanaysaan waxay la tahay dalkeenu inaanu sidaa ku sii soconayn kulmiyana sababaynu maanta ku dooranno oo aynu maxay ahayto dib ugu celinno ma hayno 7 sanadood ay dalka haysteen waxiib iyo waxboob bay ku jireen agoomi bay dhacayaan oo boobayaan waa la socotaan nin waxa TV-yada ka soconaya waxa soo dhan waxa wax kaga bedeli kartaan waa fartiina weeye fartiina wadani ma ugu ridaysaan ugu dambeyntii waxa halkaasi xariga ka jaray marwada musharaxa madaxweyne xisbiga wadani Marwo Firdawso Maxamed Rooble xaafadda Axmed Dhagax ma aha xafiiskii ugu horeeyay laakiin degmada Oktoobar ana ku maamusay Xamse Cilmi Axmed Universal TV Hargeysa